haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto share dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato like gumaha lacag noo saar please subscribe like and share thanks السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي الصومالي محمد ملك استودة دونك كجوكتين وولاشين أبحر سمائي مركلة إيطالة تلادة أسبوع عن وحن كسو قادنا يا أو آد أن أغاق فكري دورك عشاء الله صار دافي إن مادام إيكاد عدي أهرين إنسوريين آد أفولحن أو مدب كلا صوعة أو لوسمي أفريكان أمريكان نين oo dadka madowga ah sida loo takooriyo oo ay booliisku la dhaqmayaan ee aad uga hadlaysay oo dhowrkii maalmood la soo dhaafay aan aad uga kacdoonay gabigeenba wax alla wixii dareen leh oo binu aadanimo ayaa waxa ay soo xasuusisay arin annagu Soomaali hadaan nahay sidee ayaanu uga dhidhii karnaa midab kala soocan ka jira halkan annagu og dhexdeena tan ka socota haddaba sidee bay ku dhici kartaa annaga oo og dhexdeena midab kala sooca ama takoorka aanu isku hayno sidee bay ku dhici kartaa inaan ka dhiidhino arinta wadankan ka jirta mise hadda ayaanu baranay in uu takoorku wax xun yahay waan isweydiiyay su'aashaas sidee bay ku dhici kartaa inaan annaga takoorka dhexdeena ka hadlin balse aan boorar qaadano takoorka halkan ka jira oo madowga iyo cadaanka arinta ku saabsan annaga oo dad hal qabiil hal bulsho qabiil markaan leeyahay hal bulsho dad Soomaaliyeed isku dhaqan isku diin isku midab isku af oo isku luqad sidee bay ku dhici kartaa marka in annaga dhexdeeni aan iskala takoorno qabiil laf jilib qaarkeen aan ugu yeerno magacyo aanan garanaynin dadka soo saaray aan meesha ka soo askumeen annagoo ogtaa sidee bay ku dhici kartaa inaan boorar qaadano oo niraahno justice no peace and sidoo kale to markaan leenahay no justice no peace haddaysan jirin xaquuq siman nabadi ma jirto markaan leenahay ka waran annaga haddaanan weligeen dadkeena sida iskula dhaqmi jireen oo nu ognahay ilaa iimaanta ka taagan qabiil dhan baa waxa la leeyahay man guursano isma geyno gabadhaada hadday soo doonaan lagama yaabo inaad siisid hadday noqoto qabiilka la yiraahdo hadda Bantuuga ama Jareerweynaha wadamadan aan joogno waxa dhacday in Jamaicaanka gabdhaheeni aan u ogolaanay inay guursadaan balse aan Jareerweyn u ogolaanin qabyaalada intaas la eg iyo midab kala sooca intaas la eg dhexdeena kama hadlayno for example hadda waxa jira qabiil dhan oo la yiraahdo lagu yeeri jiray waa gabooyada la yiraahdo midgaan waxa la yiri midgaamada isma guursano yaa way midgaan horta muxuu yahay ereygaas halkeebuu ka soo askumay yaa ku baneeyay inaad liido qof binu aadan oo Ilaahay karaameeyay sidee bay ku dhacday nacam su'aalahaas oo dhan miis weydiina anagu horta marka mar walba waa ay haboon tahay inaan su'aalo isweydiino maxay tahay sababta qabiilkaas waa uu ka fiican yahay oo niraahno odayaashii arintan keenay ama ka dambeeyay oo in la isliida ka dambeeyay waa horay godgaleen aboor intuu cunay lafahoodii xataa ma noola maxay tahay sababta aan u sii wadno annaga generation ka dambeeya midka kale generationka ka dambeeya inuu sii wado arintii laga dhaxlay ee foosh xumeed ee odayaashii laga dhaxlay in la sii wado maxay tahay maxaan u aasi la'nahay arinta qabyaalada maxaan uga hadli la'nahay inaan dhexdeena niraahno war heedahaya landheeri langab iyo wax laga hadlayo ma jire innamal mu'minina ikhwa ilaahay soo mu oranin mid kale soo lama oranin ilaahay wuxuu noo sameeyay shu'uban wa qabaa'ilan lita'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum marka taa macnaheedu maxay tahay marka la leeyahay ilaahay wuxuu noo sameeyay shu'uban wa qabaa'ilan lita'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum kan ilaahay hortiisa idinkugu qiimaha badan waa kan idinkugu cabsida badan ama cibaadada iyo alla ka cabsigiisu badan yahay ma aha ilaahay mu oran qabiil hebel ka wanaagsan mid kale Soomaaliya oo dhan systemka dawladda hadda waxa ay ku dhisan tahay 4.5 wax la yiraahdo macnaheedu ay tahay qabiil ka duwan ka wanaagsan ka qiimo badan ka
no ma garanayo de si lagu macneeyo marka 4.5 ka laftigiisa ayaaba qabyaalad ku dhisan based oo wadankeena dhanba soo goormay wax noo hagaagayaan oo wax hagaagsanaa goormaan ka baxaynaa qabyaalada sidee baan board u qaadi karnaa oo u oran karnaa Black Lives Matter see ku dhihi karnaa annaga oo aan dhihi karin Soomaalida nolosheeda qiimay leedahay walaalka noloshiisa qiimo leeyahay annagoo dhihi karin see naf kale ugu doodi karnaa haddaba waa in qof kasta oo annaga naga mid ah uu asagu dib isu eego hoos isu eego su'aal isweydiiyo anigu qabyaaladan ma igu jirtaa hadday igu jirtana maxaan u baahnahay si aan aniga uga shaqeeyo isbedelka aanu doonayno inuu dhasho sida hadda wadankan aan ku noolnahay loo leeyahay waa inuu isbedel dhasho oo policy change la sameeyo oo siyaabaha oo sharciyada yaalaha la bedelo aan u leenahay waa inaan sidaas oo kale u niraahno sidee baan ku bedelnaa systemka soo jireenka ah oo xun oo qalafsan oo qiimaha lahayn oo diinta ku salaysneen ee cadaalada ku salaysneen see u bedeli karnaa waxa jirta mahmaah qaloocan oo Soomaalidu ay tiraahdo caado la gooyay cara alle leedahay may caado la raacay oo diinta laga hormariyay ayaa cara alle iska leh caadada xun hal la gooyo hal la saltiro hal la ciribtiro qabyaalada iyo qabiilka aanu joojino hoos aan isku eego marka isbedelkan doonayno wuxuu ku dhalan karaa in aan hadday dhacdo in gabadhaada la soo doono nin islaam ah oo ilaahay yaqaan inaadan u diidi karin based on qabiil aadan qofka hoos ugu dhigi karin dadnimadiisa qofku yahay wax qabadkiisa iyo noloshiisa kale ayaad ku eegi kartaa number 1 taas way number 2 waxay tahay guri walba waa inay ka bilaabato adiga gurigaaga qooyo walbo aabo walbo hoos u fiiri adigu waxaad tiraahdaa sidee baan uga qayb qaadan karaa isbedelkan aan doonayno sidee baan qabyaalada u ciribtiri karnaa annagoon taas ka shaqeynin board dambe yaanan qaadanin dibad dambe yaanan istaagin waa hypocrite weeyaan in qofku asaga oo hoostiisa aan ka hadli karin dhibaatada taala gurigayga anigoo dhibka taala aan ka hadli karin inaan guri kale isku dayo inaan xaliyo hawshiisa iyo dhibaatadiisa taas waxa weeyaan hypocrisy marka yaanan noqonin dad waxa lima taquluuna ma la tafcaluun yana qaban haddaad eegtid dadkan hadda ninkan hadda inta surka looga istaagay uu dilay ninkan cadaanka ah oo madowga ah sidaan uga wada dhiidhinay wad ogtihiin ka waran inaan annagu nahay Soomaalida wadankeena dhexdiisa Soomaaliya qof walaalkeen ah dab intaan ku shidnay basiin ku daarnay iyo dab holcinay annaga dadkaasaan nahay Soomaaliyay waxaan nahay dadka subhanallah fa na'uudu billah dad waxaan nahay sidaasa walaalkood just because gabadheeni buu guursaday ninkan waa jirar weyne annaguna waxaan nahay qabiil hebel waa dab ninbaa wuxuu iska dhigayba he's entitled inuu sameyn karo oo xaq u leeyahay bal eeg meesha isla joogo uu dab la qabadsiyo la gubay asagoo nool baan gubnay Soomaali walaalkeen ah markaasaan maanta ka wada xumaanay ninka surka looga istaagay maxaan dhaanaa ninkaas cadaanka oo surka uga istaagay madowga marka gunti iyo gabagabadii hadalkayga waxaan ku soo koobayaa walaalayaalow hypocrisy-ga aan joojino in aan ka dhiidhino arrimahan socda aan joojino annaga oo aan ka hadli karin taayada annaga oo dhexdeena gurigeena aanan hoos u eegi karin annaga oo annaga hor istaagi karin accountability annaga oo annagu is oran karin war qabyaalistaha oo aniga reerkayga ku jira dibaddan isaga soo saaraya aniga oo in adeerkayga qabiilistaha ah oran karin qabiilista baa tahay kulamana soconayo mid kasto naga midow waa inaad iska soo saartiin qabyaaladistaha kugu jira haddaad adigu qabyaalista tahayna ilaahay ka baqo ittaqullah ullaaba ilaahay adduunkan waxa la iska gelinayaa 2 mitir waxaana la isaga duuduubayaa maradii cadeed maanta qabyaalista haddaad adigu tahayna Allah ka daaway ka soo noqo hadduu familkaaga ku jirana iska soo saar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.